Jeg vet at mange somaliere har gjort en fantastisk jobb, har krevende yrker. Waxaan ogahay in dad badan oo Soomaali ah ay arrintan hawl adag ka qabteen, ayna Soomaalidu ka shaqeeyaan shaqooyin iyo xirfado adag oo qofku si sahlan fayraskan ku qaadi karo. Sidaas darteed, waxaan talo ahaan u soo jeedinayaa inay taxadar aad ah oo dheeraad ah sameeyaan. waxaa hadda soo idlaaday shirkii jaraa'id ee dowladda hoose iyo maamulka iyo dowladda hoose magaalada Oslo ay halkan ku qabanayeen. waxaa soo baxay sharciyo cusub oo la xiriira coronaviruska ama COVID-19. haddaba waxaan su'aalo ka weydiinaynaa xaaladda soo korortay. su-aasha koowaad aan weydiinaya waxa waaye xaaladda faafitaanka koronaha magaalada Oslo oo sii siyaadaya, maxaa inkaga qorshaysan haddaad tihiin dowladda hoose? Nå har vi, tusen takk. Waad mahadsan tahay. Sida aad arkaysay, waxaan maanta soo rognay tallaabooyin kale oo cusub. Waxaan soo rognay in dugsiyada dhexe iyo kuwa sare la fasaxo. Casharada iskuulkana qaab fogaan arag ah ay ardaydu guryaha ku qaataan. Sidoo kale, waxaan soo rognay in casharada iskuulka ay guryaha ku qaataan ardayda dhigata dugsiyada hoose fasalka 5 ilaa 7 ee ku nool 7 xaafadood ee kala ah Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grønneluka iyo Søndre Nordstrand. Sidoo kale, waxaan soo rognay mar kalena aan ku celinayaa in qofka aysan guriga booqasho ugu imaan karin wax ka badan 2 qof. Haddii tusaale ahaan aad tihiin qoys ka kooban 5 ilaa 6 qof, waxa ugu badnaan soo booqan karta 2 qof oo qoyska ka baxsan. muddooyinkii ugu dambeeyay Oslo waxay ku jirtay xayiraad adag, haddana cudurkii kor ayuu u sii kacayaa. Oslo maxaa ku gaar ah? Oslo en by på 700,000. Magaalada Oslo waxaa ku nool 700,000 oo qof. Fayruskana wuxuu aad ugu faafaa meelaha ay dadka badani ku nool yihiin. Oslo waxaa degan dad badan oo isla nool, waxaana magaalada ku badan dadka degan guryaha ciriiriga ah. markaasoo kale waxaa adkaanayso in la kala fogaado. waana mid ka mid ah sababaha uu fayraskan Oslo ugu badan yahay uguna sii faafayo, maadaama uu fayraskan yahay mid magaalooyinka waaweyn si fudud ugu faafa. waxaa hubaal ah in dhanka kale ay jiraan dad badan oo dhibsaday xeerarka adag ee magaalada ku soo rognay, gaar ahaan dhalinyarada, kuwaas oo aan samaynin taxadirkii iyo kala fogaanshihii looga baahnaa. fayraska corona noociisa Ingiriiska ka soo bilowday oo magaalada soo galay dhammaadka sanadkii la soo dhaafay ayaa xilligan si aad ah magaalada ugu faafay, dhibaato xoogganna ku hayo bulshada magaalada ku nool, gaar ahaan dhalinyarada ay da'doodu ka hooseyso 19 sano. ilaali kala fogaanshaha. xanuunkan waa la isqaadsiiyaa, waadna ku xanuunsan kartaa xitaa adigoo dhalinyaro ah. dadka waaweyn oo kaliya lama xanuunsadaan COVID-19, dhalinyarada xitaa qaarkood aad ay ugu xanuunsadaan. ilaali kala fogaanshaha, waana ka guulgaari karnaa arrintan ilaa uu talaalku dadka wada gaarayo. Inntil vaksinen kommer. haddii xaaladdu isbedeli weyso booska feeriyaha kadib, maxaa idiin qorshaysan ka degmo ahaan? Nå håper vi smittetallene går ned. Hadda waxaan rajaynayaa in tirada cusub ee dadka fayruska qaadayo ay hoos u dhacdo. waxaase ku xiran shardi ah in dadku ay sharciyada u hoggaansamaan. waxaan fiirin doonaa sida ay xaaladdu noqoto fasaxa booskaha kadib, inaan markaas ku guuleysanay hoos u dhiga tirada dadka uu ku dhacay fayruska iyo in kale baxaan si ay u kulmaan. sidaas darteed, waxaan mar kale dadweynaha ku boorinayaa inay raacaan sharciyada ayna ilaaliyaan kala fogaanshaha. haddii kale, waxaan ku qasbannahay inay magaaladu ku jirto xaaladan xiritaanka ah ee adag. haddii aan aragno inay tiradu hoos u dhacday, waxaan bilaabi doonaa in si xadidan oo taxadar leh ayar dib loogu furo magaalada Oslo. haddase
sida muuqato inay taas dhacdo wax badan ayaa inaga xiga. waxaa mar walbana xukumo tirada fayruska. haddii aan aragno inay hoos u dhacday, waxaan markaas bilaabi karnaa furitaanka magaalada. Men smittetallene vil være avgjørende. Går de ned, så kan vi starte det arbeidet. Tala ahaan dadka ku daawanaya maxaad u soo jeedin lahayd gaar ahaan dadka Soomaaliyeed? Jeg har selv bodd i Eritrea. anigu shakhsi ahaan waxaan ku noolaan jiray dalka Eritrea. wax badan ayaana ka aqaanaa dhaqanka bulshooyinka dhoolkaas ku nool. waxaan ogahay in isla jooggu iyo salaanta garabka la isku dhufto oo kale ay muhiim tahay. laakiin hadda sidaas oo kale ha samaynina. sidoo kale gacanta ha iska salaamina, xabadkana ha isgelinina, kala fogaada. salaanta noocaas oo kale ah fayruska ayaa ku sii faafa. haddii ay jiraan carruur aad awoowo u tahay oo rabo inaad xabadka ku qaaddo, fadlan hadda ha samayn. u sug oo dib u dhigo arrintaas ilaa tallaalku uu ka imaanayo, ilaa xaaladdu ay ka xasiloonaan doonto, aana si wadajir ah ugu guulaysan doonno arrintan. waxaan ogahay in dad badan oo Soomaali ah ay arrintan hawl adag ka qabteen, ayna Soomaalidu ka shaqeeyaan shaqooyin iyo xirfado adag oo qofku si sahlan fayraskan ku qaadi karo. sidaas darteed waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa inay taxadar aad ah oo dheeraad ah sameeyaan. kaasina wuxuu ahay Raymond Johansen, gudoomiyaha maamulka degmada Oslo, oo warbixin naga siinayay xaaladda coronavirus ee magaalada Oslo iyo shirki jaraa'id ee maanta ay qabteen iyo waxyaabaha uu ku saabsanay. halkan nagala socotaan waa Nursum TV iyo ayada Info 123 oo ayadu haalaba ku howlan in wax u qabato bulshada Soomaaliyeed.